bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta wacan ee hawada nagala xidhiidhayo kusoo dhawaada mid ka mid a barnaamijyada aad ka daawataan telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan kaasi oo aan ugu dabaaldegayno sanadka cusub ee 2016 waa koox ka mid ah kooxaha heesaha ee weliba dhinaca dhaqanka iyo dhinaca fanka amaba heesaha kooxdan oo magaceeda la yidhahda somaliland culture amaba som culture ayaanu wax kaga ogaan doonaa waayahooda iyo sooyaalkooda taariikheed ee dhinaca fanka hadday noqoto hidaha iyo dhaqanka iyo haddii ay noqoto heesaha kale ee ay qaadaanba dhinacayga midig haddii aan ka bilaabo waa yaxye cabdicasiis haafow yaxye kulanti wacan wanaagsan aamina waa idin salaamay dhammaan asxaabta tv-ga qaranka somalilan aad baad mahadsan tahay salaantaasi lamida baan anaguna ku salaanay bal horta naanaysta haafow maxaa lagu bixiyay intaynan halkaaba dhaafin cid walba way weydiisaa horta naanaysta laakiin wallaahi aniga waxaan ka dhaxlay aabahay kolleyba naanaysaha waa dhaxaltooyo waa la iska dhaxlaa waxaan ku xigsiin doonaa najax cabdicali kusoo dhawow barnaamijka telefishanka qaranku waan dhawahay walaalo dhammaan ummadda somalilan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka waxaan aada u salaamayaa shaqaalaha tv-ga somalilan dhammaantiin dee waxaan dileeyay sanad wanaagsan ilaahay sanadkiisa bashbashyo barwaaqaha inagu gaadhsiiyo waa tahay aamiin baynu leenahay ilaahay sanad badhaadha iyo barwaaqa aynu kala kulanaha inooga dhigo insha allah walaalo waxaa kuu raacdaa naanays ah rasmi bal hadda maxay kuugu baxday walaal waxa ay bixiyey waqti fog anigoo yar walaalkay waa tahay waxaad moodaa fanaaniinta dambe da-da yar inuu mid walba magac naanaysi ku lamaan yahay aad iyo aad baan dii soo dhaweynaynaa kusoo dhawaada baan dileenahay telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan axmed faais ayaad iigu dhibi doontaa microfoonka axmed kulanti wacan waxaanu wanaagsan aamina ugu horreyn waxaan halkan ka salaamaya horta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamuud siraayo iyo marwadiisa amni waris intaa waxaa ku xiga waan igu qaaliyo maanta halkan aan ila joogno leeraa faais cali xandulla oo jabuuti ku sugan iyo adigoo aamina xasan cawaala iyo dhammaan howlgaleenka qaranka tv-ga somalilan waanu kaa guddoonnay aad iyo aad baanu kugu mahad celinaynaa sida qiimaha ladu soo hajibtay barnaamijka dhammaantiinba kooxdiina som culture dhankan kale ayaan ka bilaabi doonaa haddaan dhankan iyo usoo noqdo bidixdayda waa khadar xariir kulanti wacan oo wanaagsan walaal aamina xasan cawaale wariye qaaliya waa tahay kolley halkan habeenkan caawa waxaad kusoo bandhigi doontaa heeso balse intaynaan gudagelin si aynu magacyadiina aad isku bartaan bulshada idin daawanaysa ihiimaad iigu gudbin doontaa ihime aamina sanad wacan oo wanaagsan baan ku leeyahay kusoo dhawow telefishanka qaranka stuudiyiisa koowaad ee magaalada hargeysa aad baan ugu dhawaa walaal aad baanad umahadsantahay aad baanad wala mahadsantiin dhammaan shaqaalaha tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan sanad wacan baan leeyahay waa tahay sanad wacan wanaagsan baanu ku leenahay microfoonka waxaad iigu dhibi doontaa seki axmed waan ku salaamayaa aamina waanu kaa guddoonnay seki haye halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha tv-ga qaranka waan leeyahay sanad wanaagsan sanad wacan wanaagsan baan anaguna ku leenahay waxaynu dhex geli doonaa dhinaca sugaanta kala gedisan ee kooxdan ay ku caanbaxday yaxye cabdicasiis kulanti wacan baan ku leeyahay master haafow wacan wanaagsan aamina habeenkan caawa ama waqtigan aynu barnaamijka ku guda jirno 2 heesood baad ugu tala gashay sida halkan iga muuqataa haddii alla hawooda la ogolaado heesta koowaad ee aynu ku bilaaban doono ayaa waxa ay tahay dadnimo bal haddee ereyadeeda wallaahi heeskan dadnimo horta waxaa siiyey abwaan jooga maaragtay magaaladan boorama laakiin isaga muu sameyno waxaa sameeyey abwaan la yidhaahdo abwaan caysh oo jabuuti ku nool heeskan waxaa la xamiyey abwaankayga da-da yare aan ka qaatay heeska siiyey cabdisalaan hadliya daahir salsal murtiside oo boorama ku nool aad baan u salaamayaa abwaankayga laxankana isagaa ku laray muusiga waxaa saaray muusigistaha caanka ah macalimu maxamed xaaji xasan maxamed isagana
aad baan ugu hambalyeynaa 3M Media Production iyo asxaabta dhammaan aad baan u salaamay aad iyo aad baan anaguna u salaamanaa bal hadda heestaasi dadnimo iyo Yaxye Cabdicasiis Hafow ayaan idin kala bixi doonaa daawadayaal ku dhawacan marwadii dulqaad leh reerkeeda daadihiisiyo reerkeeda daryeeshiyo daadihiisa noo noqo
alla ilahay waxbaa ka dhacay intay leeg baad fanaan ahayd ama baad heesaysay aniga horta fanka waxaan bilaabay ama aan soo galay 2011kii anoo ku sugan nairobi caasimadda dalka kenya inta badan horta waa ku hamin jiray inaan maalin uun xirta heeso waqtiga hadduu ii saamay riyadeedii way ii rumowday waxaan ku heesay inaan heeso oo aan soo kaco oo aan muusig la ii tumo waxay bilaabatay masraxaad istaagto masraxan labadii kun iyo koob iyo tobankii 4 sano ayaynu ka joognaa sanadkan aynu imika galnay mooyaane aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa tiimka kale ayaan iyagana mid ka mid ah u yeedhi doonaa waxaan marka kan u yeedhi doonaa najax rasmi iyo axmed jaais kulanti wacan baan ku leeyahay mar kale najax rasmi kulanti lamida walaashay macaan najaxey tolow intee baad heesaysay amaba aad hidde iyo dhaqan intaad meel soo istaagtay aad ka tumaysay heesaha dhaantada ah ee aynu ku abtirsanno ee hiddiya dhaqankeennii hooyaa aynu ka dhaxalnay awooyaasheen walaashay ilaa 2010 waan heesayay mashruuciyaad badan waan la kulmay sida dowlad deegaanka jigjiga waxaan ka tirsanaa kooxda council bandi oo dhammaantood caawa aada halkan uga salaamayo deewakaa walaashay dhinaca heesaha mar haddaad tidhi dhinacii dhaqanka 2013 baan bilaabay bal hadda dhinacan heesaha ka waran iyaga walaashay maca hees baan ka hadlayaa waan wada bilaabay waqtigaas baan bilaabay fancagaha la soo galay waa tahay waad mahadsan tahay mikrofoonkeedii axmed faais kulanti wacan mar kale wacan oo wanaagsan axmedow fanka mihidaadu lahaydeen ma adunbu kugu abuurnaa in aad noqoto maxay hayday fanaan heesa amaba dhinaca dhaqanka iyo dhaantooyinka tumaa wallaahi aaminay hidda uma lihiin laakiinse waxaan ka mid ahaa kooxda hiddaha dhaqanka markii hore hiddaha dhaqanka ciyaarta dan sidii aan hiddiya dhaqanka u ciyaarayay ayaan markii dambena fanka kusoo biiray waxaana ii suuro gelisay inaan fanka kusoo biiro maamaday ikraan cabdilaahi dalal oo heerkani soo gaadhsiisay oon halkan ka salaamay waa tahay ma mar baad wada bilowday mise waad kusoo kala horreysay dhinaca dhaqanka iyo heesaha waan kusoo kala horreeyo culturekan kusoo horreeyay marka hore dhaqanka dan markii dambena alfanaan baan markii dambena noqday iminkana waniga maanta halkaa taagan waa badiga masraxa taagan ee heesaya bal hadda waqtigan aynu barnaamijka ku guda jirno inagoo cid kasta intay habeen u tahay intay maalin u tahay intay casar u tahay intay caweys u tahay aynu leenahay waanu idin salaamaynaa halka aad barnaamijka kala socotaana waa telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa bal hadda heesta adiga iyo najax rasmi wada qaadi doontaan magaceeda heesta magaceeda waxaa la dhahdaa inankaan jeclaayo inankaan jeclaayo adiga waxaad wadataa naanays inkastoo aad guud ahaan wadataan naanayso tiimkiinani amaba markaan idhahda fanaaniinta heesta oo dhammi ay magacuu ku lamaan yahay naanaysa xidig baa adiga lagugu naanaysa bal hadda xidig haddii aad yara macnayso horta xidig waa micnaysanta waan filayaa oo waa xidig caadiya waxa lacanka ay bixiyaa waan an faais alxamdulilah oo imika iga maqan oo jabuuti jooga waanan salaamaya talabuu kugu bixiyey xidig macadaan buu kuugu bixiyey ma u ekaanshaad xidigba u ekaatay talow wallaahi ma kuu sheegay wuxuu kuugu bixiyey heestiisii ugu horreysay baan qaaday dan saas darteed ayuu magaca heestaa xidig loo odhan jiray waanu garanay heesta adiga iyo rasmi wada qaadi doontaan waxaa la dhaha inankaan jeclaayo inankaan jeclaayo haye bal hadda rasmi iyo xidig ayaan u kala bixi doonaa iyo heestaa halkudhigeedu yahay inankaan jeclaayo daawadayaal guddoon wacan
joog haka tegina tayde abidka bayla joog aniga agtaadi agjogaga necebo abidan ku doonin aniga agtaadi agjogaga necebo abidan ku doonin haka tegina tayde abidka bayla joog iladayga igada ilosaanigo amantada igada urku taladaadii acaanka leeye abidka hay iman aniga hay iman aboodi sidiisii ubadkiisa nacaybaan adi aan ku dooni runti aan ku doo aboodi sidiisii ubadkiisa nacaybaan adi aan ku dooni runti aan ku dooni aniga agtaadi agjogaga necebo abidan ku doonin agjogaga necebo abidan ku doonin aniga agtaadi agjogaga necebo abidan ku doonin iladayga igada ilosaanigo amantada igada urku taladaadii acaanka leeye abidka hay iman aniga hay iman aboodi sidiisii ubadkiisa nacaybaan adi aan ku dooni runti aan ku doo aboodi sidiisii ubadkiisa nacaybaan adi aan ku dooni runti aan ku dooni waa tahay allaydahe waxbaa ka dhacay in rasmi waxay leedahay inankaan jeclaayo haygaag tegin in axmed faa'iisna wuxuu leeyahay aniga ag jooggaag iyo araggaaga nacab waa laba haabo aad u kala fog waxaynu arki jirna uun in gabadh ku laada inanka in cishqiga amaba caashaqa laakiin in waxaynu aragnay waqtigan in gabadhii laguba laadayaba aad iyo aad bay iga qoslisay heestiinaasi in axmedow ereyada heestaydii sameeyey ereyada heesta waxaa iskale jirbacu abaan jirbacu lixanka waxaa ku leeray abwaan xasan aadan weris oo kooxdayda abwaan u ah oon halkan ka salaamayo muusiga idiin tumayada muusiga waxaa noo tumay musician aad qaaliya digaale maxamed xasan xuseen digayare oo hadda ka maqan madashan somaliland waa tahay
in rasmi iyo xidig iyo yara fadhiista ayaan idin leeyahay khadar xariir oo beer dilaacshe ku magac dheer bal soo dhawow beer dilaacshe halka kanagtayda kaale in khadar xariir kulanti wacan mar kale kulanti wacan oo wanaagsan aamina in beer dilaacshe naanaystaada weeyaan bal hadda magacu siduu kuugu baxay wallaahi horta naanaysuhu dee qaarbood siba u baxaan iyo system gaar ah in qofkuna markuu fanaan yahay oo hadaf ugu jiro wax qaybta fanaaniinta naanaysaha amba waa loo bixiyaa amba la baxsadaa waan gartay in aniga naanaystan waa lay bixiyey runtii maan anigu dalban laakiin aniga waxa ii bixiyey nin agteeda aad ugu qaaliyo oo abwaana magaciisana waxaa la yidhaahdaa xasan burcuuna joogaa caasimadda labaad ee jamhuuriyadda somaliland aad baanan hawada uga salaamayaa marka wuxuu sababtu u bixiyey waxa weeyaan anigu horta waxaan ahay heesaha markaan dhegaysanayo amba hobigaygu dooqaygu wuxuu yahay waxaan dhegaystaa dadkii hore fanaaniintii hore aad waxaan u dhegaystaa weliba heesahooda xalimo cumar khaliif mogool allaahi raxman raaximin iyo beer dilaacshe heesahay wada qaadaan marka waxaan ahay taageerahoodii koowaad marka haa heese ay leeyihiin insha allahu bismillaahi kariim waan soo wadaa oo dib baan usoo cusboonaysiin doonaa iyagoo qaaciya ayaa jira iyagoo kabana aan bulshada soo gaarsiin doonaa insha allah bismillaahi kariim waana fanaaniinteen ku dayasho mudan aynu ku dayanayno anagu intaanu halkan joogno saasoo magacaasi horta igu baxay aad iyo aad baan u gartay in kolleyba gooraha waxaa igu dhex wareegaysay in fanaan beer dilaacsho la yidhaahdo fanaaniintii hore ay uu jiray maadaama aad heesihiisa ama fankiisa aad taageertidna in uu magacaad ka dhaxashay oo wax wanaagsan mar kale waan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad baad mahadsantahay in cawayskan caawa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland baynu ku wada sugannahay in idinka iyo kooxdiina Sama Culture Community Development oo dhinacii dhaqankana wadata walow aan ka jeclaa in aan dhinaca dhaqankana barnaamijka kusoo bandhigo balse waxba maaha barnaamijyada kale oo dhinaca dhaqanka ah ayaynu ka wada qaybgeli haddii allaha awooda la ogolaado in laba heesood baad leedahay in bal hadda mar haddii jacayl iyo maxay ahaydey foorjo iyo halkan laga qaaday hees dhaanta abaad in qaadayo quman la yidhaahdo bal hadda quman ereyadeeda muusiga iyo cidda laxanka kuu saartayba halka kan baad nooga sheegi horta intaanan heestaasii dayn waxaan si sharaf leh horta kaaga codsanayaa maadaamay munaasabadii sanadka cusub ee happy new yearka 2016 ama 16 aynu ku jirno mar haddii aan masrax taaganahay waa muuqbaahiyey qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaa waajib qof kasta oo halkan soo istaagaa ku ah inuu dadka agtiisa qaaliga ku ah amba bulshada uu ka tirsan yahay uu ka salaamo marka waxaan kaa codsanayaa cid ma salaami kara waad salaami kartaa waxaan doonaya inaan dambeysiista salaanta okay waxaan kuu soo horreysiinayaa heesta labada heesood waxaan labada jeclaystay inaan horta kuu soo horreysiyo heesta hore ee hani heestan quman baa la yidhaa waxaa iskale nin cabdiraxmaan la yidhaahdo magaalada hargeysa jooga waa nin dhalinyaro ah heestan waxaan u sameynay inan qadan la yidhaa oo iyaduna reer burca ah waa tahay haddaan ku arkay baan dareen qaatayoo qadan ay walaal dumar uga qulqulaba eriyadeeda ka mid ahaa waan gartay laakiin maanta hani baan jeclahay inay sidii hani way noo dambayn doontaa salaantuna way kuu dambayn doontaa ha iga hordhicin khadar xariirow intaaba waan kula fahansanahay balse marka kan heestaa quman ayaanu u baahannahay in aad halka kan nooga tabiso daawadayaal halkaad nagala socotaana waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa waa mid ka mid a barnaamijyadaad uga barateen waana barnaamij aan ugu dabaaldegana sanadka cusub oo aan leenahay bashbash iyo barwaaqo ilaahay ummadda islaamka ha kala kulmiyo khadar baan idin kala bixi doonaa iyo heestiisaasi dhaantada ah ee quman
Bakusiyo, Bakusiyo, indah kalika, Bakusiyo, Bakusiyo, indah kalika, Bakusiyo. Bakusiyo, indah kalika, Bakusiyo, Bakusiyo, indah kalika, Bakusiyo, Bakusiyo, indah kalika, Bakusiyo. Undang ku arkay baan dareen qaadkayo kumaney walaal dumaruga qulqulay dumaruga qulqulay Undang ku arkay baan dareen qaadkayo kumaney walaal dumaruga qulqulay dumaruga qulqulay qortayga helo qorsagaar baan aan igu qabtee jacaylkun abaa qortayga helo qorsagaar baan aan igu qabtee naftaadu qaadato qorshahayga guud adaan kugu qori naftaadu qaadato qorshahayga guud adaan kugu qori Kuman, ala kuman, kunay kuman, kuman, ala kuman, kunay kuman, kuman, ala kuman, kunay kuman, kuman, ala kuman, kuman, ala kuman, kuman, ala kuman. Dante, ila Dante, Dante, alla Dante, e giunta pancana, la Dante, Dante, Dante. qalbigayga adaa qayb ku yeeshay qalbigayga adaa qayb ku yeeshay qalbigayga adaa qayb ku yeeshay qalbigayga qalbigayga adaa qayb ku yeeshay qalbigayga adaa qayb ku yeeshay qalbigayga adaa qayb ku yeeshay qalbigayga waxaan qarinayaa afku iga quba adaan kugu qancey bal qiyaas warka adaan kugu qancey waxaan qarinayaa afku iga quba adaan kugu qancey bal qiyaas warka bal qiyaas walaa
naftaada qaadato qorshahayga guud adaan kugu qori naftaada qaadato qorshahayga guud adaan kugu qori quman ala quman qunnay quman quman ala quman qunnay quman quman ala quman qunnay quman quman ala quman quman ala quman quman ala quman dante ila dante dante alla dante xudunta pankana la dante 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 waa tahay in khadaro quman alla ilaah wayna wada aragnay wadigaysa soo maaha haysta aad iyo aad in imikan fursad ku siin doonaa cidda aad salaamayso mar hore ayaad badtiisa gudbisay halkan ka salaamaysaa walow waxay suu keen laabayno hees kalena ayagu ka hadhay insha allah walaal waxaan salaamayaa horta waan soo wada koobayaa insha allah bismillaahi kariim waxaan salaamayaa labadii waalidii horta ay dhalay ugu horreyntii hooyaday kalsuumo awaadan nuur iyo aabbahay xariir maxamed cabdilaahi waxaanan leeyahay sanadkiisa ilaahay idinku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo cimro dharar waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud aadan siiraanyo waxaan ka salaamayaa oo kale marwadiisa waxaan leeyahay sanad cusub dhammaan waxaan salaamayaa ummadda shacabka reer somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan si gaara u salaamayaa oo taxadir ku jiro adiga oo ii wareysanaya hadday hortaagan sanad wanaagsan baan ku leeyahay waxaanan aad u salaamayaa inamada farsamo yaqaaninta xasan baana roome cabdiyare dhammaan inamada meesha jooga jimcaale waxaan iyo dhammaan shaqaalaha tv-ga qaranka meel kasta oo adduunyada ay nooga joogaan inkastoona aniga laftarkayga loogu yara taliyo dhinaca saxaafado laygu yara xanto waanu kugu soo dhaweyn doonaa dhinaca saxaafadana kolley in ma kala marna fanaanka iyo saxafigu in aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa mar kale kolley ku yeedhi doonaa insha allah bismillaahi kariim waay aad famas waa tahay daawadayaal weli halkaaynu ka wada soconnaa waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa in horeynu ugu sii socon doonaa in fanaaninta dhalinta yar ee in heesahooda kala duwan aad daawanaysaan marka kan waxaan u yeedhi doonaa waa Fihime iyo Seki axmed Seki axmed haddaanan khaldanayn waa axmed Seki axmed yuusuf sawt libaax waan aanaystaada markaan libaaxii in aan maqlayba in wax kale ka fikiray bal hadda sawd libaax muxuu kugu baxay wallaahi aaminay wax lagu baxay waxa hortay magacani bixiyay abwaan aad igu qaaliya oo halkan aan ka salaamayo marka wuxuu igu bixiyay wallaahi ma sheegi karayo weli kuma cadaynin sabab weli ma cadayna in hadaba sawd libaax ba haduu ku yiri kulli malaha geesinimo ayuu ku qarinayay kulli adigu ha magacaas waa ban ka helay sawd libaax ma sha Allah in Fihime in magaca niyo ayaa ku raaca oo lagu laray bal hadda niyo iyo sida kuugu baxay niyo horta runaantii abwaan halkan aan uga salaamayo abwaan weyna ayay bixiyay abwaan maxamed iga buse runaantii maalmaha kamid ah sanu kaftameeyay biguri niyo de markaan kayray ii fasil abwaan magacan in badan dadweynaha ay halo toli weydiin doonaan inantayda tee aan ku qarnay dadweynaha ay nooga sheegay buuri saasaad magaciyo duuduuban aad u xambaaratay waa tahay kulley niyo inaanay xumayn baan jeclahay waa magaca ku raaca magacay hooyada macaan kula baxday baan jeclahay oo Fihime kulley magaca hooyada un baa tis qaada aad iyo aad baan ku salaamayaa mar kale masraxa iyo barnaamijkaba waan kugu soo dhaweynayaa hees baad adiga iyo sawt libaax wiilkan la yiraahdaa aad wada qaadi doontaan haddii Allah wadalo bal haddii aan heesta adiga wax ka weydiiyo Fihime in ereyadeeda in laxanka iyo waliba muusi ereyada waxa iskale abwaan halkan aan uga salaamayaa kamid ah abwaananteeda abwaan Shacayb Maxamed Ibrahim ana qadaaf lagu naanayso laxanka sawd libaax oo saaray laxanka namu dhaafin mulaxan aad baan namu dhaafin bilaxanku haye muusigana waxa tumay Cabdilaahi Saciid on halkan ka salaamayaa in waa tahay in waxaan filayaa salaantaas inaynu idinka gudoomay in mar haddii in sawt libaaxba uu laxan aaray hadalba kama furnee bal hadda heestii iyo idinka oo dadweynaha
u sii daaya ayaan idinka rajaynayaa sawd libaax. heesta waxaan jeclay in halkudhigeedu ahaa degmo degmo oo sawt libaaxna uu laxanka saaray allele waxaan filayaa inaad halkii aad ugu tala gasheen ay heestaasi u gudubtay soo maha kulley aad iyo aad baan dii salaamayaa yaxya cabdicasiis hafow
hafow bal soo qaada mikrofoonka oo halkan agtayda soo istaag mar labaad baynu isku soo noqonnay iyo masraxa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan in anoo idin salaamayo oo idin mahadnaqaya adiga iyo tiimkaaga Summer Culture in barnaamijkuna halka daawadayaal kala socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan in yaxyo bal hadda heesta aad u haysa dadweynaha markan inkastoo ay halkudhigeedu la yidhaahdaa bal hadda inkastoo ereyada muusiga iyo laxankaba cidda kuu saartay ereyada waxaa horta ii sameeyey abwaan cabsalaan hadliya daahir heeskan isagaa sameeyey qisuuna ka sameeyey isagoo weliba maaragtay jabuuti jooga ka sameeyey laxankana waxaa saaray cabdulaahi maxamed barrow been ma sheege haye aad baan u salaamayaa isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisaba dhammaan haye muusigana waxaa tumay macalimow maxamed xaaji xasan abdikayse iyo 3 media production mar labaad iyagana aad salaamaysi waa tahay in mar haddii qiso laga sameeyey talow ma abwaanka ku dhacday may abwaanka kuma dhicin qisada inaan saaxiibkiisa ay ku dhacday maaragtay kulleyba heeska iyo waxay ku salaysan tahay iyada ka dareemi doonta waa tahay heestaynu wada dhuuxi oo inoo sheegi doonta dareenkaasi uu saaxiibkii ka sameeyey abwaanku mar kalaan idin kala baxayaa yaxye cabdicasiis hafow iyo heestaasi inkastoo
inkastoo dabaaliyo leedahay adeeg wacan inkastood udgooniyo tahay ubax sidiisii inkastoo abkaaguna wadayahay dheergara inkastoo abkaaguna wadayahay dheergara inkastoo dabaaliyo leedahay adeeg wacan inkastood udgooniyo tahay ubax sidiisii inkastoo abkaaguna wadayahay dheergara inkastoo abkaaguna wadayahay dheergara inkastoo aleelkii adiku hawaabiyo inkastooda saga habla adikuugu jecelahay inkastoo aleelkii adikugu hawaabiyo inkastooda saga habla ifka kuugu jecelahay qaybtilase waxay timid annaan uurkii kaa jaray markaad goysay helkii ee tidhi adduunyadan qofku sheegto ma ogoli ibtilase waxay timid annaan uurkii kaa jaray markaad goysay helkii ee tidhi adduunyadan qofku sheegto ma ogoli qofku sheegto ma ogoli qofku sheegto ma ogoli waxaan u yeedhi doonaa markan in axmed yare xidig ku soo dhowow axmedow xidig baa kuu raacisay oo naanays ahayd soo maha intaynan bal gudagelin heesta aad qaadi doonto xidig baa kuu raacisay magaca axmed bal intaynaan axmed xidigow gudagelin heesta aad qaadayso fursad haddii aan ku siiyoon ku odhan lahaa yaad halkan ka salaamaysaa yaad salaami lahayd ugu horeyn waxaan salaamayaa hooyaday ikraan cabdilaahi dalal yaa baay faais cabdilaahi dalal oo hooyaday oo ikraan cabdilaahi dalal oo idadii marna ah marna hooyaday ah yaa baay faais cabdilaahi dalal waxaan kaloo halkan ka salaamayaa walaalayaashay dhammaan cidii mowqeygaba garanaysa iyo musician ugu qaaliya cabdilaahi siciid cabdilaahi doo iyo maxamed xasan xuseen digaaleer labadaba waan salaamayaa waa tahay wixii magacaaga iyo muuqaaga yaqaano waad salaamaysaa kooxdaad ka midka tahayna waad salaamaysaa sama culture waan salaamaya iyadna waa tahay annaguna waanu salaamaynaa sidoo kale sama culture heestaad qaadaysa bilan ayuu halkudhigeedu yahay bal heesta ereyadeeda laxanka cidda kuu saartay iyo weliba muusiga horta ereyada iyo laxankaba waxaa iska leh abwaan aniga u qaaliya ahna abwaaninka kooxda samo cultural ahna magaciisu xasan aadan waris oo ah abwaankayga waxaa musicianka qaaligan islaamiya heesta furihiisa macaan ku tumay cabdilaahi siciid cabdilaahi doo oo marna ku xamano macalin oog waa tahay macalin oogna waynu salaamaynaa heestaasi bilan ayaan idinka iyo daawadayaasha idin kala bixi doonaa waxaa la sugaaba waa xidig oo bilan ku luuqeeya dhaqankeenan bilaane
baqiigu ahaaban kugu baaqayaaye bilankaalay aynu wada baweyne dhaqankeenan bilane baqiigu ahaaban kugu baaqayaaye bilankaalay aynu wada boholaan tegayo buca soo marayo berberaan imido beledka hargeysan kaga baaqaye biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo idhantaada wacane bili qurub oloone biyo dahab lamood yaay bilankaalay aynu wada baweyne idhantaada wacane hablamood yaay bilankaalay aynu wada baweyne bukaanka jacaylka baadkii ka go'ayo waan ku baadigoomaa beledka hargeysan kaga baaqaye biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo biitoy biit xariiray niisha daylan ee daboodan bambanaanis banankay daaqdo balanso eegee biitoy laabo khadar xariir ayaan markan u yeedhi doonaa daawadayaal weli halka aynu ka wada soconnaa waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada aan ugu dabaaldegayno sanadka 2016 ee cusub annaga oo ummadda islaamka u rajeynana badhaadhe barwaaqo iyo horumar ballaadhan khadarow mar kale kulanti aamina xasan awale waxaad moodaa dee waaban isku soo noqnoqonayo dhowr jeer halkan iskugu nimidba mar kalaan kuu yeedhay sanad cusub sanad cusub oo wareegsan oo wanaagsan weliba khadarow heestaad qaadi doonto hani baa la idhahdaa haddaan beri ladnaan qabay maanta waan habqabanaya hanidan calaamadayn iharaa tiraysaa haye meeharaa tiraysaa bal hadda hani kulley magaca hani hablaha loo bixiyaa heesta halkudhigeedana hani baa la idhahdaa ereyada ayaa kuu sameeyey ereyada iyo laxanka iyo codka baaniga iskale allaydheh oo ilaan abwaanna waaba tahay
marmar ay waxa jirta duruuftu ka dhigto laakiin darajada gaashaan la sare maan qaadan weli kolley ku dhawaatay haddii aad wax aliftay haba yaraadaane maskaxdaada intaad tuujisay ay wuxuuna kaa soo burqadeen berri ka maalina waxa ku xigta tu kaloo ka ballaadhan insha allah laxanka iyo midhahaba ada iskale in heesta dareen nooceeba aad kugu kalifay inaad samayso wallaahi dareen waxay ugu kalifay qof aniga agteeda qaalib waa oon saaxiibnahay wuxuu ambaad ugu dhaca maaha amba qof kale ku dhaca marka muraayad kale ayaan ka daawaday kolley waxaan filayaa khadaru yara xishoodee inay isaga ku dhacdana waaba xabkee suuragal bay tahay mar hadduu saaxiibkii noogu tilmaamay kama foga haniye bal hadda hani oo midhihii isagu leeyahay laxankiina isagu leeyahay muusigana masla adigunbaa maye muusigu waa aabihii muusiga alistaad muxuu ahaayey doo cabdilaahi saciid doo ninkii heestii hore iminka la qaadayna muusigeeda sameeyey guddoon wacan baan leeyahay daawadayaasha kusoo dhawaada heestaasi hani iyo khadar قدويو مروة هديك عاشق مرنا وحقي عيل حكيو قلبي جنول هو قدويو مروة هديك عاشق مرنا وحقي عيل halku dhiga ujeedada hanay barashadaadii laygama horeynin haddaan beri lanaan qabay maanta waan habqamayaa haddaan beri lanaan qabay maanta waan habqamayaa halku dhiga ujeedada hanay barashadaadii laygama horeynin haddaan beri lanaan qabay maanta waan habqamayaa haddaan beri lanaan qabay maanta waan habqamayaa waanan ku hawaynaho bitayada dhibtaan qabo hadmadiga bogsiinood hanidaan calmadayay iharatiraysa hanidaan calmadayay iharatiraysa waanan ku hawaynaho dhibtayada dhibtaan qabo hadmadiga bogsiinood hanidaan calmadayay iharatiraysa hanidaan calmadayay iharatiraysa xasuusba lagu raray halbowlaha halbu caashaqigu furay amiyaan gudhayniyo ribashiyo xasuusba lagu raray halbowlaha hadda iyo hadhowtaba taanu heesayaa tahay nafta taanu qurayen hase waxaa u rabayeen ku hawaawiyaa tahay hase waxaa u rabayeen ku hawaawiyaa tahay
hadda iyo hadhow tabaataanu heesayaa tahay nafta taanu hurayn hasa waxaa u rabayeen ku hawaawiyaa tahay hasa waxaa u rabayeen ku hawaawiyaa tahay waanan ku hawaynaho dhibtayada dhibtaan qabo hadmadiga bogsiinood hanidaan calmadayay ixaraatiraysaa hanidaan calmadayay ixaraatiraysaa waanan ku hawaynaho dhibtayada dhibtaan qabo hadmadiga bogsiinood hanidaan calmadayay ixaraatiraysaa hanidaan calmadayay ixaraatiraysaa waanan ku hawaynaho dhibtayada dhibtaan qabo hadmadiga bogsiinood hanidaan calmadayay ixaraatiraysaa hanidaan calmadayay ixaraatiraysaa heestaasi beerkaygaad saaqday ereyadeeda laxanka iyo muusiga ereyadeeda waxaa iskale abwaan jaamac farax jaamac waa abwaan aad u daayiran aad u salaameeyo laxankana waxaa saaray fanaan abwaan laxamayste musashinle aad baan wada salaamay waa khadar raamboona weyaan aad baan u salaamay isaga iyo kooxdeedii uu ka tirsan yahay ubax daayiro baxfaamo 9 star dhammaantood aad baan wada salaamayaa ilaa macalinka dee kooxdaasoo yuusuf sheekh muumina aad baan wada salaamaya subxaaniya iyo dhammaantood wada koobsaday umuuriyo dhanba dee maasha Allah tabaarakallah aad baynu u salaameynaa aad baan halkan uga salaamaya muusigana waxaa iskale macalinkii muusiga waanan dee ninkii igu horreeyo aad baan u salaamaya dee hadii qaali igu leeyahay waxaan filayaa inay tahayba heestii kuugu horreysay mise dareen gaaraad heesta ku qaaday may run ahaantii heesta dareenkayga ha iska wadataa xagga dareenka anigu musishinliyo fanka kusoo gelitaanka waa ninka aadka iga caawiyey aad baan u salaamaya wadigaala yaran waa heestii kuugu horreysaad qaadayna bal hadda fihimaniyo iyo heesta ugu horreysay ee fankaba kusoo gashay kolley waxa kuugu horeeya wuu ka saameyn badan yahay amaba wuu ka xamaasad kulul yahay waxyaabaha kale oo dhan heestaasi maadaamay kuuguba horreysay bal xamaasadeeda midhaheeda iyo weliba sida ay fihimaniyo codkeeda toolmoon iyo muuqaalkeeda quruxda badan inoogu soo gudbinayso ayaynu wada daawan doonaa guddoon wacan baan idin leeyahay waxaan idin kala bixi doonaa heestaasi iyo weliba fihimaniyo oo codkeeda iyo muuqaalkeedaba idinku soo gaadhsiisa aad baad mahadsantahay walaal
bisha waan ku sugi beerkayga saaftayo saqda dhexe hordada waan ka soo keexay bisha waan ku sugi barnaamijkaasi halkaad kala socoteen waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay gala qayb galaysay barnaamijkan inuugu dabaaldegaynay sanadka cusub ee 2016 in kooxda samo culture oo ka dhisan caasimadani hargeysa in yaxye cabdicasiis hafow ayaa ka mid ahaa axmed faayis oo xiddig ku magac dheer khadar xariir beer dilaacshe fahiimo cismaan niyo najax cabdi cali rasmi iyo saki axmed sawt libaax in guud ahaanba dhallinyaradaasi oo igala qayb gashay barnaamijkani aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kana tirsan in kooxdaasi samo culture ee caasimadda hargeysa ka dhisan in daawadayaal barnaamijkaasi aad arkayseen dhinaca farsamada waxaa inoo hagayay waa xasan maxamed jaamac xasan baana roma jimcaalaaw cali ibraahim cabdi cumar jibriil ildab in jamaal cali dheere in cimraan khaan in iyo guud ahaanba farsamo yaqaanada telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan oona la-aantood suuro gasheen in aynu is aragno aad iyo aad baan iyaga laftigooda ugu mahad celinayaa kooxdaasi barnaamijka igala qayb qaadatay baan u mahad celinayaa inta haatan istuudiyaha igula sugan baan u mahad celinayaa oon leeyahay waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka iyo sida fiican ee aad u daawanayseen iyo guud ahaanba bulshada uu barnaamijkani soo gaari doonoon leeyahay aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa mar kasta ku xidhnaanshaha telefishinka qaranka barnaamijyadiisa iyo wararkiisa oo aanu rajaynayno in aad wax badan kaga xaqa beeli doontaan haddii allaha awoodda la ogolaado anigoo aamina xasan cawalo barnaamijka idinla socodsiinayay inta aynu ku kulmayna barnaamijkan oo kale haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan idinkaga tegayaa fi amaanilah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته